السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن داود يال حلقني وعدل تي في حرنتي ساودن كي سويدن. أنا وعبسم الشبين أيام للسعودين دونا هدي برالك النقطة وركي أردن. قضبنا وركوا وين وحاكم بنتقون دونا هدي برالك النقطة. رئيس الوزراء هدل كي توبيا بأحمد وكهضلي. عالقلادو آد وين سامي ونقويا شنوشي سا انتو حيلك هاي ونكشقين كريوايي. magaalada xabcaad weyn ee gobolka mudug ayaa waxa iska horimaad dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan oo ka dhacay iska hor yimaadeen kooxaha al-shabaab iyo waliba ciidamada dawladda. baarlamaanka Puntland qaarkood ayaa waxa ay soo jeediyeen in si degdeg ah xilka looga qaado gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. qodobadaas iyo qodobo kale oo caalami ah haddii ay baraali ka noqdo ayaad ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada warkii oo dhan. رئيس الوزراء إثيوبيا بأحمد أيام مركي وجوه الرئيسي قطب ديره وجدي وحاو كجهاد لي عقبدي لسه جود بنادي تاني مركي وحيل كلودي بي وحنا وقطب ديره وجدينا يه كم ده هيد مركي حيل كرئيس الوزراء عقبتي وحنا نقضي محبوس قول وجود شراء لامها سردون كدلكا انت سين وصل جبينا وركي وجوه الرئيسي aan deganaa xaaladdan ka sugnaa lama qiyaasi karo waxaan ahaa qof amnigiisa sugnayn oo dhimasho diyaar u ah tusaale waxaa lay diiday dhowr qof oo ila socday ilaalada gaarka iyo xafiiskayga ama qolkaan deganahay amnigiisa ay sugaan waxaa madaxtooyada gacanta ku hayay laamaha amniga iyo kuwa isku markaasi xidhan anigu qof cusub oo meesha soo galay oo kale ayaan noqday waxaan ka fikiray hadday wax dhacaan meeshan ka baxsan lahaa sida awgeed maalin ayaan dhahay gabiga madaxtooyada aan soo dhex wareego oo aan soo arko dhammaan waxay dhaheen maya waa halis ciidanka madaxtooyada ilaaliya inay qaar ku khaarajiyaan ayaa dhici karta cabsi weyn ayaa lay geliyey sirdoonkii ninkii haystay wuxuu ii sawiray inaan mar walba halis ku jiro meesha keliya aan ku badbaadi karaana ay tahay inaan qolka iyo xafiiska aan u dhexeeyo oo keliya muddo ayaan ku jiray maxbuus noocaasa xitaa xafiiska shaqada aan qabanayo maadaama shaqaaluhu wada ahaayeen kuwa ay sirdoonku keensadeen wax sir ah ma jirin go'aanka aan qaadanayo wuxuu ahaa wax suuqa yaala maadaama kooxihii TPLF gacanta ku hayeen sirdoonka markaasi madaxtooyada aan maamulayay xitaa ubadkayga ayaan u cabsaday oo aan qurbihii ku celiyey markii aan dareemay inuusan amnigoodu sugnayn anigu habeen walba dhimasho waan ku tali jiray isla markaana diyaar baan u ahaa inaan markaasi dhimanayo kadib ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaan la tashaday waxaanu isla qaadanay in aan xaaladda lagu sii jiri karin oo aan isku shaandhayn loo baahan yahay dhanka laamaha amniga si isbeddel dalka uu uga hirgalo sirdoonku markay maqleen inaan isbeddel samaynayo waxay madaxdii sirdoonku boobeen hantidii dalka waayo iyaga keliya ayaa ogaa gudaha dalka iyo qalabka yaalla xafiiskooda sirdoonka mar walba sirdoonku way markaasi rarteen inta aan ogahay wax badan inta aan ogahay ayay rarteen waxaana jira wax badan aan ogeyn kadib waxaan u soo jeestay dhanka ciidanka qaranka oo qaybihiisa kala duwan 80% Tigray u gacanta ku hayeen jenaraal ku-xigeenno korneyl ku-xigeenno shiishale daraja kasta waxaa ku qornaa qof Tigray ah dhibka ugu weyn wuxuu ahaa sidii waxaan oo dhan loo bedeli lahaa safarkii ugu horeeyay waxaan go'aansaday inaan deegaanka Soomaalida tago laakiin sirdoonku waxay dhaheen waa lagu dili oo al-shabaab ayaa joogtay ha tegin waxaan dhahay kuway dilaya
caddayn ma haysaan inay halkaasi joogaan. haddii jawaabtu tahay haa, dee waa shaqadiinnii ee soo qabta kuwaas. haddii aan caddaynahayn shaqadayda hayga hor joogsanina ayaan idhi. kadib sidii ayaan jigjiga ku tegey ayuu yidhi. sababtaan u tegey waxay ahayd oon ogaa in la rabay in Soomaalidu goostaan, kadibna Tigreedu goostaan, abaabulka koowaadna Soomaalida laga dhigay, kadibna dalka uu kala yaaco. si aan u fashilno ayaan jigjiga ugu tegey, shacabkana aanu la kulmay. kadib markaan isbeddel iyo isku shaandhayn bilownay, waxay isugu tageen Maqalle. halkaas ayayna qorshe qas iyo rabshado joogta ay ka wadeen. waxay sameeyeen 113 dhibaato intaan xilka hayay. mar ay meel qarxiyeen, mar deegaanada shacabka isku diraan, mar qowmiyadaha afka isu geliyaan, iyagoo lacag iyo kooxo iyo markaasi dacaayado adeegsanaya. bal u fiirso deegaanka Amxaaradu wuxuu xad la leeyahay Oromo. waad aragteen Oromo iyo Amxaaro meel xadka ah waa la isku diray. dhamka Amxaarada markaasi iyo Benishanguul waa la isku dhuftay iyagana. dhamka Amxaarada iyo Canfarta waa la isku dhuftay. Canfartu iyagu waa la mid, Oromada waa la mid. degaan walba degaanka xuduud la lahaa ayaa la isku dhuftay. degaan walba qowmiyadaha wada degan waa la isku diray. laakiin degaanka Tigreega cidna iskuma dhicin. meelaha markaasi xuduudda ah laftigoodu gudahooda qowmiyadda degan isma lahayn. sababtan waxaa weeye wax isku diray maadaama iyaga ahaayeen degaanku nabad waa Tigreege. indhaadooggooda waxay dhihi jireen annaga uunbaa nabad, deegaanada kale way gubanayaan. oo yaa dabka ka dhex shiday deegaanada kale ee aan iyaga ahayn. waxaa xigtay qaraxii Addis Ababa iyo dilkii Hajaluu oo ay aad u qorsheeyeen. tusaale gaaban, deegaanka Canfarta iyo Soomaalidu way islaayeen. dagaal soo noqnoqday kadib, madaxweynaha Canfarta ayaa fikir yaab leh soo bandhigay. waan sii wadaynaa hadalkii Abiy oo fadeexad ku ah maamulka markaasi deegaanada, isla markaana fashilaya wixii ay qariyeen. intaas ayaynu ka soo qaadanaynaa haddii ay baraali ka noqdo khudbad dheer oo uu jeediyey ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. halkaasi toosa nagala socotaana waa Adal TV. dagaalla culus ayaa ka dhacay saaka subaxnimadii hore deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug. weerar culus oo qaraxyo bilowda ayaa markaasi ay ku soo qaadeen kooxaha Al-Shabaab subaxnimadii hore saaka, waxayna ku qaadeen deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug. wararka intaasi waxay ku darayeen qaraxyada kadib deegaanada uu ka bilaabmay dagaal cusub oo dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalahamiinta markaasi iyagu weerarka soo qaaday Al-Shabaab. waxaan la sheegaya inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. laba dhinacba waxa ay sheegayaan in ay dad kala qabsadeen, qaar badanna halkaasi lagu laayay. halka dowladda Soomaaliya qaarkood ay sheegayaan in ay laayeen dad badan oo muhiim u ah Al-Shabaab oo weerarka soo qaaday, qaarkoodna gacanta lagu hayo. laamaha garsoorka gobolka Sool ayaa joojiyay shaqadii iyaga oo hakad geliyay habsami socodkii shaqada. mas-uuliyiinta garsoorka Somaliland ee gobolka Sool ayaa shaqadoodii hakad u geliyay sabab amni daraateed kadib markii dilalkiis xigay ee loo geystay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool iyo garsoorka sare. sida wararka aanu ka helayno, maxkamadda gobolka Sool ayaa joojisay shaqo maalmeedkeedii kadib markii saraakiil ka howlgali jiray ay sabab amni daraadeed u wadi waayeen shaqadii loo igmaday. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maxkamadda ayaa wararku inta sheegayaan inuu Hargeysa ugu boqoleen kadib markii ay cabsi ka soo muujiyeen beegsiga lagu hayo saraakiil ka shaqeeya laamaha ammaanka garsoorka. lama garanayo sababta loo beegsanayo laamaha garsoorka, mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda dilalka ka dhaca gudaha gobolka Sool. bishii Maarso sanadkan ayay ahayd markii qarax miino lagu dhigay gaari lagu dilay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud Cumar.
ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ayaa magaalada Laascaan lagu dilay garsoore maxkamadeed oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Salaad kaasoo la khaarajiyay isaga oo markaasi ku sii jeeda haygiisii sida ilaa iyo iminkana cid loo qabtay ma jirto. xildhibaano ka tirsan Puntland ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ugu baaqay in xilka iska casilo. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa ugu baaqay inuu iscasilo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jiriin iyagoo ku eedeeyay inuu ku fashilmay hogaaminta golaha baarlamaanka. xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka inuu kala qaybin ku sameeyay xildhibaanada dhexdooda isla markaana uu samaystay xulufo u gaara waa sida hadalka u dhigeen iyo maleeshiyaad uu ka cabsi geliyay xildhibaanada qaybtooda waa sida ay u sheegeen hadalkee. waxaa kaloo xildhibaanadu ku eedeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka inuu mas-uul ka yahay fowdadii maanta ka dhacday xarunta baarlamaanka iyagoo sheegay in xildhibaano isaga taageersan inay mas-uul ka ahaayeen buuq iyo kacanka hadal ka dhacay gudaha baarlamaanka. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa horey loogu eedeeyey xildhibaanadan ugu eedeeyeen in rabshado ka dhex abuureen golaha baarlamaanka taasoo keentay inay istaagto shaqadii ka socotay xarunta golaha. khilaafka soo kala dhex galay baarlamaanka Puntland dhexdiisa ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii baarlamaanku meel mariyay in jadaha laga saaro ka doodista heshiiska DP World ee dekedda magaalada Boosaaso. dowladda Kenya ayaa ka soo jawaabtay tallaabada dowladda Soomaaliya ee qaaday waxaana ay ku tilmaamtay mid loo sameeyay ee deeno aan la xaqiijin waa sida ay hadalka u dhigeen. dowladda Kenya ayaa jawaab ka bixisay tallaabadii ay dowladda Soomaaliya dalkeeda uga saartay safiirkii Kenya Lucas Tombo oo la amray in dib dalkiisii ugu laabto. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in dhinaca dowladda Soomaaliya aysan marnaba ka helin wax xiriir ah oo ku saabsan go'aanka ah in ay dalkeeda ka saarto danjire Lucas Tombo. falcelintan waxaa loo sameeyay eedeymo aan la xaqiijin oo ku saabsan faragelin ay Kenya ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya. dowladda Kenya waxay ixtiraamaysaa mabaadi'da caalamiga ayaha tashiga qarannimada madaxa bannaanida siyaasadda iyo sharafta dhuleed ee dhammaan dalalka gaar ahaan kuwa Afrika ayaa lagu qoray qoraalkan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay go'aan loogu eriyay safiirka Kenya ay qaaday iyadoo ilaalinaysa madax bannaanida qaran kadib markii ay u muuqatay in Kenya si badheedh ah faragelin ugu hayso amuraha dalka Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay dhigeeda Kenya inay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ku cadaadiso inuu fuliyo ajandadeedii siyaasadeed oo ah taas oo carqaladaynaysa heshiiskii siyaasadeed doorashada dalka Soomaaliya. intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa warkii dunida ee caawa. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo wakhtiga qaaliga aad noo horteen. dib intaanu kulmi doonno haddii ay baraali ka noqdo wakhtigiisa waxaan kaga tegayaa amaano Allah.